بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaynu soo gaaray casharkii 11aad ee ku saabsanaa qasaa'idku maxay yihiin qabuuraha iyo qasaa'idkase maxaa ka dhaxeeya qasaa'idka leenooma macnayehe maxaa ku qarsoon waxaynu ku jiray markii inoo soo dameeyay xaaji cali cabdiraxmaan fiqi raximahullah nin culimada Soomaaliyeed ayuu ahaa culimada Soomaaliyeed dadkii ugu aqoonta roonaa waliba qarnigiisii oo xilligiisii xaaji cali markii qasiiradiisii loo alufay oo dhawaan la alufay wayna soo maray waxayna ahayd haddaan dib idin xasuusiyo إلهي كن لنا عونا بحاج علي مجرتين إلهو كالمنو أهو حاج علي وحنقصي استقال لقو بريايا حاج علي بإله لقو بريايا إلهو وحنا سيدي أدو وحنا مسيين كديدي حاج علي وحنقصي ساسي كدقانت موجودة محا أديدي مركا قورتو سالي هاي إلهو وحنا سي أديقا محا أديدي محا كهرتاقا حاجرة حاد أحمر يستقل ربي سبحانه وتعالى مبدأ وحا كجرة أدو إلهي مبري كديدي قفوا إنا وسي مدى soo ma aragtid saa markaan leeyahay xaaji cali buu wuxuu dhimaayay awliyadii dimaaha xaaji cali raximahullah rahmatan waasi'a marka qasiidada dheer buu alufay aqithna bil kirami salihin wa ibn sirayn haday waataan soo akhrinay xaaji cali marka inuusan waxa shaqo ku lahayn casharkii dhexe waataan ku soo qaadanay casharkii hore waxaynu galeynaa hadda marka masafooyin xaaji cali uu lahaa oo uu alufay oo alif ilaa ba ilaa xuruufta ka dambaysa intaynu ka gaaro qadaraan ka soo qaadanay anagoo buugaa ka soo guurinay waxaana uga dan leenahay inuusan waxa kan ilaahay qeyrkii lagu baryaayay iyo suufiyada iyo qabuura galeenka iyo xoolaha qabuuraha iyo waxa inuusan shaqo ku lahayn ee uu ahaa nin culimo ah oo oday ah oo Soomaaliyeed oo xilligu gumaystuhu soo bilaabanayay oo wadanka Soomaaliya ku soo bilaabanayay وعالم الإسلام قيب كمدنا قبصدي أيو أها موجودة 10 سنة تقريبا أيو جيري أهان كهريي حلقي محوهاي تيسيد كو صبحي 8 سنة تقريبا ميلهاس أيو كهريان ملاينا أيا مركا حلقي قوميستيال كو صوب بلابين إلا عالم كعربتا أيو هريو هران قبصدين إنبضان إنتين حق أفريكا دوسو قدبين ساسوي marka uu fiirso masafooyinkiisa qayb kamid ah xaaji cali alifiyaan ibnu aadmi arin waad ka dhacanta ilaah waa ilaaheen dadna waa adoomadii eedaadiye ku ogaada niman aakhiru falan ereygan ku oran doono ma iga aqbalaysa istimaacu waa doore gudunaynka raariqi annaha iga amaarin adna laafta ku adkee amrad yahow aqoon laaway aawa aabbayaashaa ragga meesha lagu aasay waa wada asaaga mawtun buu leeyahay weedkan duulkan aynabay mase aduusan ku aqoon mase waad ka adag tahay mase inuusan ku iman axdi baad lahaydeen mana aqoon gaaban maada adduunyo ah injirtana haduu laayay waa inuu alaaliya inuusan arxami hayn nabigii ma aynabin wareegada hal la adkaysto oo masbaa horeeye allow yaa ogeysiiya inay eeri go'an tahay ilin noolba kuu sheegay habtiina kuu qiray aan waa aamusahayaaye wax afeefi ii tahay nina yuu hadhow ooyin goortalo abaajiday waad arkaysa hadalka murtida iyo maaragtay qaayaha ku jira waa talo waa waano waa wacdi adduun iyo aakhiro iyo qabri iyo horay iyo waxayna ka dambeeyeen ina xasuusinaya iyo wacdi iyo waano weey sidoo kale xarafka ba'da ba'iteen ba'ow aadmi ma baraarugaysaa bal maxaad u baan kuusi baktigaan la gowricin mawjeeda baktigaan la gowricin waa waxyaalaha la cuno xaaraanta ah waan sharciga ku bannaanayn baxri ma xalaaleeyay inaad been hawaas tahay waliba oo jaamac inuu yiri baan u malaynayo waa tubaakada iyo daroogada iyo waxyaalaha la isticmaalo faraha badan weeye بحر نول بإذن واني برخد لئيه بحر نول بإذن واني بربرسي ألا كامري waxaad buuniyaal aragtay barxadle iyo saylici
beerkaaga kuma doogan hadalkaa biliilihi waxaad buuniyaal aragtay barkadle iyo saylici beerkaaga kuma doogan hadalkaa biliilihi balse kada allaad baajin maadaa bidhaanta leh u fiirso meeshuu ka hadlaayo balse kada allaad baajin maadaa bidhaanta leh bakti baanad filanayne baqaskaaga sii fuud bakti iyo dhimashaadan filanayn dabcan bakti baadan filanayne baqaskaaga sii fuud haddaad maanta bay doonto berri baynu leenahay haddaad maanta ka badbaado belada iyo abaarta iyo dhimashada berri weeye haddaad maanta bay doonto berri baynu leenahay nin balaayo lala maagay baddayaa ka celin kara jahannama bawaarkeediyo beledkii xadiimaad bacaskii hadday noqoto oo banka laysa soo tubo dhididka kaa baxayaana webigii basraad yahay oo baadilkaa falatay baalkii ku qoran yahay afka baabah laga yeelo baabacadu marag tahay afka baabah laga yeelo oo baabacadu marag tahay haddaan boohintaa badanin beenlowga waa ani maaragta in aakhire la xusuusinayo oo wax allaale wixii oo dhan bannaanka uu soo dhigay oo sakadii ka hadlay oo muxuu ahayto ilaahay subxaana in laga xishoodo ka hadlay sidoo kale xarafka ta'da ta'iteen dadow taladu yay maanta kaa tegin dad intaad ka tabanaysid tabcadaada ha u dhiman intaad meel kale ka sheekanaysid adigu ha ishalaajin dad intaad ka tabanaysid tabcadaada ha u dhiman dadku haatan wuxuu taawin taladiisna ay tahay toog iyo lababa tuuro dabadeedna taa'ibo waa dabeecadda jidha dadka oo mar iyo laba way iska toobad keeni doontaaye marakan maanta rido ma ujeedaa toog iyo lababa tuuro dabadeedna taa'ibo fircoon baa tixdaa lahaaye goormaa la taqabbalay taallooyinkaa duugan maadaa ka tiil roon ninna taag hadhow ma lehe yaan laysku tacadiin tawxiidka ku adkeeya carrabkiinna toosta leh waa taladii iyo masafadii wanaaggii oo kaleeto isagana ka hadlaaya xarafka sa'da u fiirso isagana sa'iteen sawaabka ilaah ma wax lala simaa jira nimanbaa simaar duuban soortooda laga dhigay jahannama sifaadkeeda nimanbaa ku saawiyan sida suraha hoosiyo hurayaa la kala yahay sida suraha hoosiyo hurayaa la kala yahay waa xidigaha sare iyo dhulka ku xayaal weeye saasaa loo jannada goortii la tago thuluthaynku waa doore midka thalithaa ba'ay waa aayaddii ku olayd fii suurati aayaddii ku olayd thulatun min alawaliina wa thulatun min alaakhiriin ma ujeeda idaa waqaca ajashiinu waa saaka ama waa halaathada 80 nin koru dhaafay dadba waa ku sugu kuun soobaan ma la ilaaway hadalkiisa haabita xadiiska saxiixa ahaa weeye soobaan ibnu mujadid sow reer hamuud ma arag sifuhu ku naar galay hawaab khayr leh baa sal ahe eebbaha la saa'ilo u fiirso kelmaddaa hawaab khayr leh baa sal ahe eebbaha la saa'ilo ilaahay ha la baryo weeye ma ujeedaa sidoo kale xarafka jiinka jiinyeen jabow aadme ma jalbeebanaysaa jidxun baad ku socotaaye jicsan ma u helaysaa jees miyaa ku habban nin asaagi jiifsaday jaankaaga waxaad fuudi jid siraad ma moogtah jaankaaga waxaad fuudi jid siraad ma moogtah ninna jaamo uma haysto joombiyadna ka af badan jileeciisu waa sida timaha jaahiisna uma kaco waa jidkii siraad iyo qalqaloociisii jileeciisu waa sida timaha jaahiisna uma kaco ninkaan jiirta laga saarin duul jahannamaad nuqay ninkaan ilaahay maanta badbaadin yaa ku badbaadinaya wadaadada loo qaylinaya ma ku badbaadinaya meesha ma kugu soo gurmanaya may wey maxaa markay isu dhibaysaayo ilaahay uga godabta uga gelaysa jilibkaaga ma og tahay iyo jinatuurku waa been waa soomaalida iyo qaabkay isu dullayso iyo qaabkay isu gumaysato iyo qaabka laysu ilhaameeyo iyo anaa kaa jilib roon anaa kaa tol roon anaa kaa madaxsan adigu gun baa tahay anna gob baan ahay anigu laandheeraan ahay adiguna laangaabba wixii weeye jilibkaaga ma og tahay iyo jinatuurku waa been muslim way isku wada jooge jinniyuusan kuu talin muslim aadam baa wada dhalay kullukum min aadam wa aadam min turaab
ina akramakum cinda allaahi atqaakum ma ujeedaa nafta waad jeclaydeene jarka ha iska xoorina jahannamo iyo ololkeeda ma nin jiin olaa jira waataad u wada jeeday ragga jawhartiisii abuurta goortii la dhigay waataad u wada jeeday ragga jawhartiisii maxaa niman jamaamiira jeex looga soo tegey meligii jajuubaayey adma joojinaysaa meligii jajuubaayey adma joojinaysaa jeerdhaafka nebi waayey ma jeclaysanaysaa qabrigiina kuu jeexan qabrigiina kuu jeexan luxudkiina kuu jilan jiirkaaga dixiraa leh meelaha jinaadka ah lafta joofabaa hari saantaada jilifta ah jeer hore waxaad falatay jildigaa ku marakici jeer hore waxaad falatay jildigaa ku marakici jiirkaaga iyo xubnahaaga iyo gacmaha iyo indhaha iyo jirkaa kugu marakacaya wey warqad beriba lagu jiiday jeebkaa laguu gelin warqad hore loogu qoro lagu diyaariyey jeebkaa laguu ridaaya warqad beriba lagu jiiday jeebkaa laguu gelin waxaad adduunka la joogto wax adduunka lala joogiyo majikaartan baa jira wax adduunka lala joogo iyo majikaartan baa jira in qiyaami jiri doono majikaartan baa jira jimcahaa dadkuu maraga jinniga iyo wanaaskaba goortuu jibaadayo ninna ruuxu kuma jiro oo naftu ka dhacayso oo cabaadayo qofku qaylinaayo mar haddii la kala jeesto ninba jiiddi waa u socon mar haddii qabriga la geliyo iilka la gesho nin la hadlaa ma jiro nin walba waa dhaqaaqa jahannamo iyo ololkeeda jahannama niman baa leh jannadiina duultage jahannama niman baa leh jannadiina duultage nin jihaadka wuxuu sheegay waa ahel jaxiimaad ninkii jihaadka ka soo horjeeda ninkaan nin culimo ah oo jihaadah oo ku dhaawacmay oo meelo badan u maray oo hindiya u tegey oo caalamka carabta la xidhiiray oo warqadihiisa iyo khadkiisa hadda la wada hayo ayuu ahaa oo muxuu ahaytoy waagi dambanatana jihaadka halkaa u tegey oo tanzaniya iyo meelaha afrikada u maray oo meelo badan u maray oo dadka ku boorriyey ayuu ahaa wey sunnihii wuxuu yidhi nin jihaadka wax ku sheegay waa ahel jaxiimaad sunnihii nebuu jaray kutubtiina jeerdhaaf inuu jaahil ku caddaaday anigaa u joogsada anjuujaa u dhiman maayo aan waxba iiga juusayn adna waana uma jeedid anna waaba jiijaday waa af soomaali hore jiijaday hadalkayga jawhara haddii aadan jiqi hayn jinnigii isha caddaa iyo jafaliilla kuu tali haddaadan waanadeeda qaadanayn oo aadan dan ka lahayn jinnigii isha caddaa iyo jafaliilla kuu tali waa saas weeye haddaadan wax qaadanayn waxba fahmayn meel baa kuu cad meel baana ilaahay kuu calaamadiyeye soco hore u soco sidoo kale xarafka xa'da shiikhu muxuu ka yidhi raximahullaahu xa'iteen xusuus laawe ma isla xadduweynta xaakaa laga abuuray xawdaada rubadda ah xawadaa qof laga keenay ma xeeraarinaysa ma ujeedaa xawl kaamilaad huruday xeryo eebba kuu dhigay habartaana waa xaamil xo ku dhaafsan ma og tahay xijaab eebba kuu yeelay yaad ku xirdiyoonayd xanaf gaajo maad arag dhogortaana ma xumaan xowlayn waxaad nuugtay xabadkeeda naaska ah xadkay hooyadaa aragtay xaalkaa dhammoo idil kuwa haatan xaarxaarsha soo kama xishoodaan adigoo xumoo xaar leh yaan lagu xambaarsaday xoolaha allaa yeelay xaqna kaaga waajibi sekadii ma xaalaynin xunxun beena maahee inaad xarigga soo geliso waad ka xantamaysaa xuduuddii allena diidday xeerkiina kuma jirin ilaahay xogtaada og waadna xarbiyaysaa aakhirana uma xeedaanna weyada qosolkaad isku xabeebin xujo maad u leedahay xarakaad wax ku abbaaran nin ilaah xoreeya raggaad shalay wax ka xabaashay ma xusuusanaysaa meligii iyaga xiidhay adma kuu xabiibbaa xagidaan ku wada duugnay waadna xarragootaan xagidaan ku wada awdnay waadna xarragootaan
xaq halkaanu ku hubnaaye xillaawo iga dheha xaq halkaanu ku hubnaaye xillaawo iga dheha hadday nayl dawaco xagato xaarxaara badanaa nin xalaashii laga qaaday sidiis ways xumeeyaa xiribtiisna kuma keenin xooggiisna kuma helin inta lagu xanaaneeyey xamdi eebbe uma naqin inta lagu xanaaneeyey xamdi eebbe uma naqin ilaahay xeryaha joojiyey u xisaabin daranaa sow aadan iyo xaawo xaygoodii ma ahayn nebigii alla xurmeeyey xinjirtiisii lama dayn ma u jeedaa nebigii alla xurmeeyey xinjirtiisii lama dayn malakamid cidna dhaafi maayo nimankii xunayn diriray xaddi may lahaayeen sow xaamid lama joogin maantay xaquuqmeen nebi maxamed baa ku dhex jiray hortii dhibaatadu dhacday sow xaabal lama jiifin maxamuud xawaadane xamduliyo maxaa laayey xirsi faarixii hore sow samantar uma xaatin meel loo xariiqnaa aawe xeliyo xoolo xeryo gaalladoodii maxaa lagaga xaaleeyey xor kafniina maahee wardadow xalaal quudo xaaraanna haw noqon xaq allaad ku dhalateene xeeryuu ku tabadulin xaq allaad ku dhalateene jumladaa u fiirso xaq allaad ku dhalateene xeeryuu ku tabadulin ma u jeedaa xayawaanka lala joogo sakada ha laga soo xiro intaan xaakimadu goosan cilmiga ha la xaabsado oo toobadda xanuunkeeda xabadku ha ku doogsado xabiibkaaga kuu tola iyo xididba ha la aakido xabiibkaaga kuu tola tolnimada iyo wanaagga iyo sharafta iyo wada noolaanshaha xabiibkaaga kuu tola iyo xididba ha la aakido xididka iyo wanaagga iyo sharafta daris waa xaq weyn yahaye xaajadii ha loo galo xan iyo been xumaan xasad xaaraan wixii gala intaan uunka la xisaabin xaalkood ha laga baxo ma u jeedaa qasiidadaas marka iyo gabayadaas iyo masafadaas xaaji cali baa iska lahaa qaybtii horena waataynu ku soo marray xaaji cali oo la leeyahay ilaahay kun lanaa cownan bixaaji cali majeertayni ilaahay kun lanaa cownan ilaahow kaalmo noo ahowo waxaad nagu siisaa bixaaji cali majeertayni soo uma jeedid walaalayaalow marka arrintaanu saynu hore u sheegnay waa arrin falsafada lagu qaraabto dadka lagu baarto ninka hadda nool oo jooga qasiidada looma ururiyo laakiin maadaama magac iyo sharaf uu lahaa ninku ama siyaasadda xaggeeda ama culimanimada xaggeeda ama aqoonta diineed xaggeeda ama taqwada iyo sharafta kale ninkaasa qasiidada loo allufaa qasiida mar haddii loo allufo bes waa laga soo daba dhacaa qasiidadaasa loo qaadaa qabrigiisana waa la is agtuumiya ilaahayna waa lagu baryaa arrintaasi waa gef saynu hore u sheegnay insha allahu tacaala marka casharkii 11aad baynu halkaa kusoo gabagabaynaynaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaalaa intaynu casharka kale u tegi doono ilaahay subxaanahu wa tacaala sida khayrhayna waafajiyo wasala allahu wasallama wabaaraka calaa sayidina muxammadin waaalihi wasaxbihi wasalam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu